waxaa guud ahaanba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu daafuray guri cusub oo ay deganaan doonto jaamacadda Alfa sida hortiina ka muuqata waxaa hadaba xafladii lagu daafurayay gurigaasi cusub ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyntiina halkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa ee magaalada Burco waxaana hadaladiisii kamid ahaa anagoo u soo wareegana dhismihii cusub inuu xariga nooga joogo wasiirka waxbarashada Mr. Abdullaahi aad baan ugu soo dhaweynaa wasiirka oo ah runtii nin wax badan ka qabtay xagga waxbarashada haday noqoto quality-geeda dardargelinteeda iyo dhinac kasta noqoto waxa kale oo halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku dhiirigelinaynaa in waxbarashada kor u qaadisteeda iyo tayeynteedaba qaybtiina ka qaataan idinku jaamacaduhu aad bay u farabateen laakiin waxa uu farabadan doonaa imika xagga tayada uu farabadan doonaa insha Allah waan lagu tartami doonaa tayada wana la isreebi doonaa qaar baa ka daadku qaadi doonaa marka way soo dhaweynaa waxaan ugu dardaarmaynaa wax weeyaan in ubadkeena wiiliga gabar baa inuu raadino aqoon miisaaman oo noloshooda wax ka taraysa waynu ku magaranayaan حاجة تهيئة سكريا عبد الرحمن إبراهيم شبكة ورك عالمية هيكري نيوز.